السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السوري وهذا ما أنت هدي الله إدمو وحين كهدي دونا أو إنه صوب نديجي دونا دور برنامج هذا لغو دياريو امتحان هذا وي برنامج هذا مادام ودد بدن يجمع عادية إمين كأوباهين إن استعمالان وحليدا هذا إن أونلاين إكزام يسا استعمالان ميد وحني تسدونا very simple أو آدو فدود إن برنامج كاسي آدو فدودي هاي وأنا simple وحوينا معها magaciisa waxaa la dhahaa Socrative ayaa la dhahaa waa kan Socrative ayaa la dhahaa Socrative kaas marka laba qaybood buu leeyahay midna waxaa la dhahaa student login midna waxaa la dhahaa teacher login so teacher baan ku qoranaa Socrative teacher ayaana ku qoranaa waad soo degsan kartaa mobile-kaad ku soo degsan kartaa laftiisa waxaa kaloo ku isticmaali kartaa computer-ka laftiisa mobile-kana waan iga tusi doonaa teacher login-kan ku dhufanaynaa teacher login-ka maraad ku dhufatid waxaad buuxbuuxinaysaa waxyaalaha qaar baad buuxbuuxinaysaa name-kaagii waxaasaad buuxbuuxinaysaa sida caadiga ahayd sidan marka kugu soo kacayaa waxaa ku dhufanaysaa create account ku dhufo create account mara ku dhufato kasoo qaad first name-kaaga gelinaysaa last name-kaaga email confirm okay marka inta dhamaystirto waa kan tusaale waxaan gelinaynaa jaamac waxaan leenahay last name-kiisu waa Abdi waxaan leenahay wuxuu leeyahay jaamac number baan iska gelinayaa @gmail.com kana hadana soo copy gareynaysaa mar labaad waad ku tuuraysaa password-kiisa kasoo qaad 12345 next ma iska dhahaynaa next markaa dhahdaan uu soo galo wuxuu diidayaa password-ka 1234567 okay 1234567 okay next aan dhahno country-ga aad kasoo gelaysa ayuu ku weydiinayaa waxaa iska dhahdaa Soomaaliya okay let us get down hoos baan tegaynaa okay wadanka Soomaaliya kadibna waxaan leenahay organization-kaagu muxuu yahay university organization name-kaaga magacuun iska soo geli last tag halkan aan gelinaynaa role-kaaga adiga muxuu yahay teacher I agree baa ku dhufanaysaa next baa leedahay intaa markaa dhamaystirto kadib that is it intaasuu kaaga baahan yahay maxaad isticmaalaysaa labadan daaqadan wuxuu ku weydiinayaa ma Socrative free baad doonaysaa mise waxaad rabtaa Socrative professional oo lacag la bixinayo Socrative free iska dhe finish dhe markaa finish ayaan dhahaynaa finish markaan dhahno wuu inoo soo baxayaa markaa Socrative free waa kan finish ayaan leenahay waa kan welcome buu dhahayaa daaqadaas ayaa kugu soo horeysa wuxuu ku siinayaa markaa kaasuu ku siinayaa eega kaas ayuu ku siinayaa waxa weeyaan default name-kaasuu ku siinayaa wuxuu leeyahay quiz wuxuu leeyahay space race wuxuu leeyahay exit ticket wuxuu leeyahay kuwaasoo dhan buu leeyahay so wuxuu leeyahay multiple choice wuxuu leeyahay true and false quiz oo kalaa ku dhufanaysaa quiz baa ku dhufanaysaa quizka maraa ku dhufatid halkan waa quizeska laga baarayo haddii quiz hore u haysatay kanoo kale haddaad doonto dooran kartaa next ayaa leedahay waxaa kaloo samayn kartaa quizkii waa kan quiz baa hadda samaynaysaa so quiz haddaad ku dhufatid multiple choice-kan haddaad ku dhufato ayaga waxaa kuu soo baxaya markiiba multiple choice inaad samaysid laakiin maadaama aynu rabno inaynu imtixaan samayno waxaan ku dhufanaa ka ay ku taalo quizzes baan ku dhufanaa menu-ga waxaa ku jira launch oo below imtixaankii quiz waxaa ku jira room waxaa ku jira report waxaa ku jira result so waxaan ku dhufanaynaa quiz ayaan ku dhufanaynaa quiz maraan ku dhufano waxaan leenahay add quiz ayaan kusoo daranaa create new quiz baan leenahay kasoo qaad kadibna waxaan leenahay quizku muxuu yahay baa lagu weydiin karaa waxaa lagu odhan karaa waxaa ku dartaa ma multiple choice baa ka dhigaysaa mise true or false mise short answer so waxaan dooranaynaa multiple choice oo kalean dooranaynaa waa inoo soo baxay markaa multiple choice-kii waa because automatically waan bilaabaynaa quizka waxaan ka dhigaynaa kasoo qaad AI exam baan ka dhigaynaa halkan aan tegaynaa marka su-aashkooda waxaan weydiinaynaa what is an artificial intelligence waan iska weydiinaynaa answerka koowaad waxaa leedahay it is
kanoo kalaan leenahay waan copy garaynaynaa kanaan ku bedelaynaa isagana sidoo kale su-aalahaaga adu halkan ka buuxsadee halkan kan waxaan ka dhigayaa BA kan waxaan ka dhigayaa computer science-kiisa u daa kan waxaa tirahdaa waa biology okay haddii marka aad rabto inaad jawaab kusii darto tusaale ahaan not all okay haddaad rabto inaad mid ku darto add answer baa dhahaysa haddaad rabto inaad ka saarto midna cancel baa iska dhahaysa haddii aad doonayso inaad sawir ku darto halkan aad sawir kaga daraysaa su-aasha qaridadii oo kale waxaan oo kale qaridadan sharax baad qofka ku jiri halkan aad kaga daraysaa halkan waxaa kaloo kaga soo dari kartaa su-aasha kaliya ku ekaan mayse su-aalahan kee sax ah horta tusaale ahaan su-aashana sax ah taasaad tigta saaraysaa kadibna okaydaad tigta saaraysaa bes waa dhaafaysaa su-aashaa saas ku dhaaftay taa cagaarka ah ayaa sax ah marka taa cagaarka ah ayaa sax ah halkan ayaad imaanaysaa marka iminka halka timaadid multiple choice ku dari mayno true or false baan ku daraynaa waxaan leenahay tusaale ahaan okay AI doesn't have coding baa iska nidhi kadibna waxaan leenahay waa false ta ayaan tigta saaraynaa iyadaa saxda saaraynaa waayahay ka soco so marka intaa dhammaysid waxaan ku darnaa short answer ee iyadana ku daraynaa kadibna waxaan leenahay halkan aan su-aasha weydiinaynaa waxaan leenahay tusaale aan define waxa la yihahdo sensors agents waayahay waan iska tegaynaa marka jawaabihii saxda ahaa ayaa halan ku daraysaa okay su-aashaasi waa sax tanna waa sax mid dhowr su-aalood ilaa 7 su-aalood 8 su-aalood baa ku dari kartaa kadibna waan iska soconaynaa tan iyada saasaynu ku daynaynaa mid kalaa ku dari kartaa so su-aalahaaga markaad dhammaysato ee aad dhammayso finish safe baa ku dhufanaysaa bartaa an exit safe an exit baa ku dhufanaysaa quiziskaaga haddaad tagtid marka waa kan quiziskaagii AI exam wata AI exam wakaas AI exam wakaa okay waxaan doonaynaa waad copy baad ka qaadan kartaa waa download garaysan kartaa download baad dhigi kartaa haddaad rabto inaad mid cusub kusoo abuurtana waxaa leedahay create folder ama waxaa leedahay add quiz ayaa dhahaysaa waa kan create new quiz magac baa u bixisanaysaa waa ka haddii aadan rabinna waa iskaga tegaysaa so quiziskeenu waa kuwaas waxaan rabnaa imtixaanka inaan bilowno oo aan ardadii ay soo galaan imtixaanka adaa bilaabi kara adaana dhammayn kara waxaa ku dhufanaysaa barta ay ku taalla launch waxaad tegaysaa quiz launch waa bilow moogtahay quiz baan bilaabaynaa kanaan hadda bilaabaynaa quizkaas ayaan ku dhufanaynaa kaynu rabna inaan markaa bilowno kadibna waxaan leenahay next kadibna halkan 3 badhan baa imaanaya 3 badhan waxa weeyaan waa instant feedback in feedbacka markiiba si degdega loo helo open navigation in ardaygu iskaga soo noqnoqdo so kanoo kale wuxuu leeyahay wuxuu ka rabaa ardayga magac wuxuu leeyahay su-aalaha inuu isku dhex yaaciyo oo arday inuu usoo saaro su-aasha ugu dambaysa arday inuu usoo saaro su-aasha ugu horeysa buu leeyahay faa'iidadaasuu leeyahay waa shuffle questions wuxuu leeyahay shuffle answers oo ah ardayda inuu mid su-aasha A uga dhigo midna B uga dhigo midna C uga dhigo kaasaa ugu wanaagsan badhanka ugu horeeya ugu wanaagsan waxaa shidaysaa shuffle require names qofku markuu soo gelaya magaciisa rabaa questionska isku dhex yaaci answerska isku dhex yaaci questionka feedbacka ka qari ardayda because hadday feedback helaan markiiba middaa dhahaya waa sax markiiba inay kusoo laabtaan baa laga yaabaa so waa inaa ka qarisid kaasoo kalean dooranayna saas u deynaa kanoo kale isna waxa weeyaan waa open navigation magac baa laga rabaa shuffle questions kan laakiin way ku laalaaban karaan kan waa mid lagu laalaaban karo teacher basedka waxa weeyaan require names shuffle answers laakiin kana ugu wanaagsan marka instant feedbackgaas ayaa ugu fiican imtixaankii markaas aad bilaabaysid daqiiqadihii ardayda message buu dirayso waxaa leedahay okay imtixaanku wuxuu bilaabanayaa 2 oo buuro ah linkiga aniga aad ii soo diraya start ayaan leenahay marka start imtixaanka hadda uu bilaabanaya activity-gii hadda uu bilaabanaya marka ardaydu waxay sameynaysaa iyaguna waxay ku qoranayaan Socrative oo students ah Socrative oo students ayay ku qorayaan Socrative students ayay ku qoran iyagu login iyo
waxba uma baahna ayagu login iyo waxba uma baahna marka halkaa bas bay soo gelayaan eega room nameka ardada adaa usoo diraya room namekaaga waxa weeye waa abd abdi 532 abd 532 magaca waa ka bedeli kartaa abd 532 weeye marka halkan aan tegayna waxaan ku qoraynaa abd abdi 532 okay join baan leenahay marka join uu dhaho wuxuu weydiinayaa magacii buu soo saarayaa weliba wuxuu kaloo ku ficay su-aalaha uu isku dhex yaacinayaa bahalkani tusaalahan waxaa la yidhahaa kasoo qaad jaamac faarax baa la yidhahaa dhan baan leeyahay imtixaankiisa aan ugu biiro ardadan waqti baad u qabanaysa waxaa leeyahay 30 daqiiqo ku dhamaanaya okay automatically su-aalihii buu ii bilaabaya waa idinka arka su-aasha koowaad wuxuu weydiinayaa what is an artificial intelligence waxaan dooranayaa c oo kale c ayaan dooranayaa c markaan doorto it is a field of biology it is a field of computer science oo kale aan dooranayaa submit answer baan dhahayaa marka wuxuu odhanayaa weliba waxaa hadda khaladnay su-aasha inaan qarinay ahayd because su-aalaha ardada inaan ka qarino ayay ahayd su-aasha AI doesn't have coding trude waa yahay waa false soco halka wuxuu ku yidhi define agents maxaa la dhahaa waad ku qorqoraysaa submit answer baa dhahaysaa marka qofku uu ka shaqeynaya marka imtixaanka markuu ka shaqeynayo waa kuwan adu halkan aad ka daawanaysaa waxaad tegaysaa maadaama launch iyo quiz iyo room iyo report iyo result baad tegaysaa result marka 3 su-aalood kaliyaad meesha keentay 3 su-aalood waxa weeye waa 1 2 3 taa wuu saxay waa cagaar tan wuu khalday waa true tan wuu saxay waa weli kamuu shaqeynin percentage-ka uu marayana waa 67% waa 67% markuu dhammeeyo tan oo kale uu submit answer dhaho okay iska dheh weliba su-aasha inuu tuso ma aha show answer khalad bay ahayd show answer khalad bay ahayd inaan ku sameyno marka qofka wuxuu odhanayaa qofkaasi wuu dhameeyey testigii wuu dhameeyey okay halkan adigu imanaysaa qofkani waa kan su-aasha wuu saxay 100% su-aashan waa true halkan oo kale soo furi kartaa waxaad eegaysaa scoreka qofkaasi wuxuu keenay 33% buu keenay halkana soo furaysaa waxaad eegaysaa inta mid uu saxay oo kale waxaad eegaysaa bartaa inta miduu saxay hal su-aal uu saxay hadhow reportkii dadka waa kan qofka magaciisii reportkii dadkii tirada badnaa xaggan bay kaaga soo baxayaan quizka marka la launch garaynayo marka la joojinayaan leeyahay quiziskaaga baad tegaysaa barti ka shaqeey resultskaaga baan leeyahay ardada waqtigood u qabatay markuu gaadho waxaa leedahay finish ayaa dhahaysaa finish okay baa leedahay imtixaankaasi wuu xidhmay marna labaad lama geli karo mar labaadna lama soo geli karo haddaan quiz kusoo laabanay iminka oo aan rabno inaan mid ka mida launch garayno aan haddana AI examki ku dhufano oo kale oo aan halkan nimaadno waxaan eegi doonaa launchigana aan dhex joogno quiziska aynu tagno kanaan bilaabaynaa waxaan leenahay next instant feedback baan leenahay show question feedbacka inoo shidnaa waa khalad hataasaa inoo shidnayd labadaa badhan waa inaa furtid kuwan require names magac buu rabaa shuffle questions shuffle answers marka sidaa daraaddeed ardadu ma kala qishi karaan qaar su-aalihii waa la isku dhex yaaciyey jawaabihiin oo la isku dhex yaaciyey markuu la hadlo dhowr ma b baa ku qortay mise c mise d inay isu yimaadaan mooyaane way adag tahay xitaa dee markaad tiraahdid 30 su-aalood oo 30 daqiiqo ah waxaa laga yaaba markii laba qishaanna inta kale ka dhammaato marka qof kasta waa nafsi bay kolley noqonaysaa haddii isu yimaadaan xitaa maybe inay yara adag tahay hadda kan start baan leenahay hadda mar labaad baan start garaynaynaa qofkan hadduu doono mar labaad ha soo galo tusaale ahaan hadda classkuu furan yahay hani baaba la yidhahaa kasoo qaad haddii xitaa arday muxuu ahaa uu rabo inuu mar labaad galo hadda eega waa kan it's a field of computer science submit markaa dhahdo usoo saari maayo jawaab because waan ka xidhnay kanoo kala tegaysaa isna submit answer baa leedahay ka soco saasoo kale wakaa kanoo kale waxaad iskaga qorqoraysaa isna submit answer baa leedahay waxaa ku laabanaysaa meeshaadii waxaad eegaysaa qof kale inuu soo galay hani baa yana hadda soo gashay wakaa marka so micneheedu waxa wey halkan waxaa ka arki kartaa number of students oo markaa kalahaskaa fadhida finish baa leedahay markaa so taasi way fududahay yes baan leenahay kalaaska markaynu dhammayno so bahalkan wuxuu ku fiican yahay waxyaalo tiro badan oo wanaagsan buu leeyahay oo ardada loogu diyaarin karo examiska waana mid ka mida kuwa wanaagsan ee wax lagu diyaarsado iska simbalka ah reports buu hadhow leeyahay reportskaagii waad heli kartaa oo meesha bay kaaga soo baxayaan exam kasta AI examka reportkiisii hebel kale reportkiisii mid kasta reportkiisii wuu kuu soo baxayaa searching reports buu hadda leeyahay so wuu kuu soo saaraya tusaale haddaan soo qaadano aniga waxaa igu jira imtixaano aan ku diyaariyay baa jira waa kanoo kale markaan soo galo quiziskayga waxaa jira kan hadda AI examka iga soo khaldamay
tigta halkaas saaraya waan delete garaynaya haddaa rabto hal imtixaanna delete garayso waxaa kaloo eegi kartaa reportskiisi baad eegi kartaa so saan reportka u eegno waxaan tegaynaa waxaan rabnaa inaan reportka eegno reports ayaan tegaynaa reports waxaan leenahay kan reportkiisa na tus waa kan reportki marka ardaydu waa kan reportki ardaydu waa kaas halkan aan ku qoranaa show badhankaasaan furanaa show names waa qarin kartaa show answersna waad saas soo saari kartaa show names baa soo saari kartaa waa kuwa marka ardadaasi waxay sixeen ardadaasi waxay khaldeen marka waa kuwaas saas ayuu usoo baxayaa maxaa la saxay maxaase la khalday saas ayuu noqonayaa marka kaasi saasuu noqonayaa so hadda waxaad ka arkaysaa totalkii qof kasta wuxuu haysto iyo waxa uu keenay magacyadana waa iska qarin kartaa hadhow aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina aad daawateen socrative studentiga iyo socrative teacherkana waxaa ku kala garanaysaan halkan mobiladiina taga waxaa kala soo degi kartaan halkan waa idinka ku arkaya calaamadahoodii waa kuwa mid waxaa la dhahaa socrative student mid wuxuu leeyahay calaamada socrative teacher isna calaamadaasuu leeyahay haddii aadan u baahnayn computerna halkaa kasoo gal ardada socrative student bay ku qoranayaan sida urlka caadiga ah hadhowna waxay soo gelinayaan calaaska waxay kusoo birayaan magaca meesha adigu aad haysato tusaale ahaan iminka anikayga cabdixaliim baa la dhahaa markay soo galaan hadhow magacoodii bay gelinayaan marka quiizka markaa la bilaabay ayay gelayaan asalaamu calaykum